Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu taagan yahay waa inaan si degdeg ah u soo afjarnaa dagaalka isla markaana aan wax ka qabanaa dacaayadda ka socota baraha bulshada. Aad bay u adag tahay in lala dagaallamo marin habaabinta iyo beenta lagu faafinayo baraha bulshada, ayuu leeyahay Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa lagu waramayaa inuu ka baaqanayo ka qaybgalka shir madaxeedka ururka ASEAN oo bisha Oktoobar ka dhacaya dalka Malaysia, waxaana la filayaa inuu shirkaasi ku matalo Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha. Bal qiyaas sababta uu Shiin u tagaynin shirkan. Waxa ugu weyn uu ku qasbaya in hogaamiyaha Shiinaha uusan shirkaasi ka qaybgalin waxaa lagu sheegay in shirka uu sidoo kale ka qaybgalayo Trump, iyada oo diblomaasiyiinta Shiinaha laga soo xigtay Xi Jinping inuu u arko Trump nin dhib badan oo ku daalin doona in ay sawirro badan galaan, waqti dheeraad ah warbaahinta la hadlaan. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa qorsheynaya haddii Mareykanka uu bilaabo duulaan uu dalka ku qabsanayo in qof kasta oo Venezuela ku sugan la siin doono hub uu ku difaaco dalkiisa, iyada oo marka horeba lasii diyaariyay 4.5 milyan oo qof oo ku kala sugan dhammaan magaalooyinka dalka oo la hubeeyay, kuwa oo loo diyaariyay in ay la dagaalamaan Mareykanka oo ciidankiisa iyo maraakiibtiisa dagaal ku soo daabulayo xeebaha ku dhow Venezuela, sida uu sheegay telefishinka Ruushka ee RT.